waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed meesha aan joogno marka ay arkaan inay noqdaan dad nagu faraxsan noo soo dhawaada annagana aan u soo dhawaano oon dareenno inaan la joogno walaalahayn. deegaanka Sabiib oo ah dhul barwaaqo ah kama muuqato nolol wejiyada dadweynaha waxaa laga garan karaa diifta iyo in ay ahaayeen dhibanayaal muddo sanado ah. 2 isbuuc ka hor ciidamada danab ayaa al-shabaab ka xoreeyay deegaanka. boqolaal dadweynaha ayaa isku soo baxay maalin ka hor markii uu booqday taliyaha ciidamada lugta. waxa uu sharaxay ciidamada xoogga dalka iyo ujeedooyinka ay u yimaadeen inay tahay sidii nabad iyo barwaaqo loo gaarsiin lahaa dadka masaakiinta ah ee ay gunnimada badeen argagixisada al-shabaab. iga cararto aabaha Soomaaliyeed inuu ariga iga cararo wiilka Soomaaliyeed inuu aniga iga cararo wax noo suurta gali kara ma aha waxna farxad gelinaya ma aha wax aan doonayno ma aha waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed meesha aan joogno marka ay arkaan inay noqdaan dad nagu faraxsan noo soo dhawaada annagana aan u soo dhawaano oon dareenno inaan la joogno walaalahayn saaxiibadayn aabayaashayn hooyayaashayn inaan la joogno inaan dareenno doonayno. waxaan rabaa marka deegaanka Sabiib iyo guud ahaan deegaanada ku xeeran meel kasta waa tagi doonaa waxaan doonaynaa soo dhawaada haddii aad arki jirteen dad idin dhibaya halkan dadka hadda ku sugan dad idin dhibaya ma ahan dad xaafadihiina idin dhibaya waxaan rabnaa warbixin inaan celin deegaanada waa qiimaynaynaa deegaan kasta waa tegaynaa magaalo kasta waa tegaynaa tuulo kasta waa tegaynaa waxaan la noqonan rabnaa waxaan rabnaa inaan dhahno magaalo heblo ama tuulo heblo maasha Allah ummad Soomaaliyeed oo xalaal ah oo nabad doonaysa aa ku sugan waxaan nahay dad islaam ah waxaan nahay dad walaalo ah waxaan nahay dad Soomaaliyeed waxaan nahay dad hal dan ah waxaan nahay dad ujeedadoodu ay hal tahay noloshoodu ay hal tahay jinsiyadoodu ay hal tahay Soomaali ah. Odawa Yuusuf Raage taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu tusaale u soo qaatay dhacdo argagixisada al-shabaab ay kula kaceen qof aan waxba galabsan oo ay ku gowraceen duleedka boondada deegaanka Sabiib. qof kasta Soomaaliyeed waa jeclaalahay runtii inay u duceyso meel kasta ay joogto inaan inkaarno waxba kama soo baxayaan way u sii fasahaadayaan dhibaato bay sii galayaan riski bay sii galayaan waxaan ognahay magaaladan Sabiib meesha boondada nin iska miskiin oo Soomaaliyeed inay ku gowraceen madaxiisa sureen ilaahay baan idinku dhaariyay ee xadiiskee sheegay argagixisada masaajida alle ayay u adeegsadeen goobo lagu farsameeyo geerida iyaga oo walxaha qaraxa ku sameyn jiray laakiin si fool xun ayay uga tageen kadib markii ay burburiyeen kana qaateen agabkii beedka alle loogu talagalay waxaa la oran karaa waa burcadiimeed. muuqaalada aan helnay waxaa ku jira guryo dad rayid ah oo ay ku xireen qaraxyo si ay u basbeelaan. isagana waa soo deynayna sida shalay lix qofooda soo deyn fahmaysan laakiin marabteen inaga naftirkiina nin dambiile ah in lagu dulhaayo ama rabta anagana ma rabno waxa u socnana waxa waaye qofka daalimka ah oo dambiilaha inaan ka qabano ama dhal ama ha kula dhasho warkaas ma la fahmaa ama u dhax waa saddexdaas oo Soomaa marka cid kuma gardarooneyno. deegaanka Sabiib iyo kuwa ku xeeran ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa jooga hadda waxaa loo diyaarinayaa sidii dadweynaha loo gaarsiin lahaa waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha oo dhammaantood ka caagan goobaha ay joogaan argagixisada. baaqaynaa ciyaalka maqan oo runtii ka cararay xaafadahoodii iyo hooyayaashoodii aabayaashood ka cararay aad baan uga xunnahay inay runtii ay muxuu ahay sheego ku noolaadaan marxalad adag hawdka inay ku jiraan ayagoo wax u banaynaya aysan jirin inay dhibaateeyaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa marka inay xaafadahooda dib ugu soo noqdaan inay isu soo dhiibaan ciidamada dawladda gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo halkan ku sugan diyaaran u nahay inaan muxuu ay sheega gacmo furan ku soo dhaweyno haddii ay ka soo laabtaan oo ay ka waantoobaan dhibaatada ay ummadda Soomaaliyeed ku hayaan marka waxaan leenahay xaafadihiina ku soo laab. qabashada Sabiib waa fariin cad oo tilmaamaysa in uu bilowday qorshihii argagixisada dalka looga sifeyn lahaa.